الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدحوينه galmudug أحمد دعالة جيلة xildhibaanada senatarada madaxda qaybaha kala duwan ka soo qayb gashay munaasabadan dhammaan magac kasta halka lagu joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dhammaan waxaan mahad celinaynaa intii nagala soo qayb gashay munaasabadan aad iyo aad u qiimaha badan iyo soo dhaweynta madaxweyne Axmed Ducaale Geelle aan ku soo dhaweynay maantay magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug intii ka qayb qaadatay qof kasta kaalintii uu ku lahaa uga mahad celinaynaa intaas kadib maanta waxaan soo dhaweynay runtii madaxweynihii aabihii Galmudug oo taariikh iyo xusuus weyn ku leh Galmudug isu keenay u tanasulay odatinimo aan horay Galmudug u soo marin ka geystay maantay in halkan la wada joogo sababteeda lahaa sidoo kale wixii ugu dambeeyay ama odatinimadii iyo heshiiskii iyo tanasulkii ugu dambeeyay maantay u muujiyay Galmudug oo runtii aan dhihi karno maanta waxay u tahay reer Galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhammaatay khilaafkii iyo waxaabii yararka oo jiray iyo haddii wax laga dhex fiirinaya Galmudug dhexdeeda waxaan markaa inaan ka cadeeyo wax walba oo kala duwanaansho ahaa oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geelle xaf khilaaf iyo tabasho Galmudug dhexdeeda ku hartana ma jirto waa ilaahay mahadiis aragtideennii bay ahayd qorshaheennay ahayd inaan walaal kasta meesha uu wax ka tabanayo iyo siduu wax u tabanayo inaan ugu tagno ninkii ugu muhiimsanaa oo Galmudug sidaan hore u soo sheegnay ugu muhiimsanaana maantay ayuu Galmudug u tanasulay odatinimadiisii shalay lagu yaqaanana uu ka dhabeeyey waxaan leenahay mudane Axmed Ducaale soo dhawow madaxweyne dadkaagii dalkaaga ku soo dhawow sharafay kugu hayaan odagoodii baa tahay odageennii baa tahay shalna taariikhaad u dhigtay maantana taariikhaad u dhigtay waxaan ku leeyahay waxa intaa ka dambeeyana tashi iyo talo iyo odaygeed fadhiga Galmudug u tahay aad iyo aad mar labaad kugu mahad celinayaa maanta waa maalin aad iyo aad qiimo badan ugu leh Galmudug runtii waxaan rabaa inaan reer Galmudug sheego iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan alkhilaafu fitna walfitnatu ashaddu min alqatl qof kasta intaas calooshiisa geliyaa la rabaa waxaan soo dhirnay iyo wax badanna maanaan maqlayn xoogaa yar bay ahaydoo kululaysee haddana waxaan rajaynayaa odaygii waa tanasulay waa la tuurayaa la odhan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhoweynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iga raalli ahaada dadka ma tiri naqaan anugu wasiirada iyo xildhibaanada iyo saxaafadda iyo ummadda carrada joogto oo dhan kulligiin aad iyo aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan noo soo dhoweyseen 60 kilomitir baad naga soo dhoweyseen arrin sahlan maaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa Galmudug inay raysato dadka kulligood Galmudug inay raysataan loo baahan yahay Galmudug dhibaatada inay sii haysto looma baahna anugu geed fadhi kaliya maahaye waxaan rabaa inaan iska fadhiyo Galmudug maba ka tagaayaba xamar dambe uma socdo qof walba ogow
inaan jidadka iyo dekadaha iyo inaan dhisaan rabo halkaasaan iska aadahay iyadana waxaan rabaa halaygu soo taakuleeyo ya rag badan oo meesha joogow war igu soo taakuleeya waa shilaafada ka daaya warku waa inoo dambeeyaa habeen dambe iyo mar baan xaflad dhigan doonaa aan maaragtay si fiican u kaftanno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin galmudug waa mid laba maaha saacaddan laga bilaabo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin rag badan oo meesha jooga oo aan dareen kaga waa jiraan iga raalli ahaada haddii mar hoos baan u kaftami doonaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wax dhibaato ay ma jiraan qof walba qalbigaa khayr u sheeg hala shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu